waxaa hadda soo gaartay xog ah aabbo Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan kaam ku yaala duleedka magaalada Cadaado oo qiyaastii jir 5 kiiloomitir waxaan u koorgalayaa oo safar gaaban aan ugu tagi doonaa kaam badbaado oo aabbahaas ku xanuunsan yahay si ay u caawiyaan boqolaalka muslimiinta ah oo ku nool dunida. waxaan soo gaaray halkii aan rabay oo ah kaam badbaado oo aabbaha Soomaaliyeed oo naafada ah oo ku dhibaataysnaa. waxaan haatan taaganahay guriga aabbaha naafada ah waxaan gali doonaa gudihiisa si aan xog badan uga soo ogaado. isxaq wareysi dheer kadib Abba Cabdinuur Geelle waxa uu ii sheegay in muddo 20 sano uu xanuunsanaa naafana ahaa. waxa uu sidoo kale sheegay in uu dhowr jeer isbitaal tagay laakiin isbitaalada Soomaaliya ay sheegeen in aan waxba laga qaban karin. ugu dambeynna muslimiinta meel kasta ay joogaan waxa uu ka codsaday in caafimaad degdeg ah laga soo gaaro isaga oo sheegay in aan dalka waxba looga qaban karin. Bismillahir Rahmanir Rahim. magacaygu waa Cabdinuur Geelle. xoogaa xanuun baa haya dhikar waa qabaa muddo 20 sano ku dhowna waxaan ahaa naafo waxa ayaan ka socon karin oo ka shaqaysan karin. wax hadda shaqaaho soo gala iyo wax mataqaana noo shaqeeyo dad ma jiraan. ilaahay risqiisa aan isaga noolnahay kaam liira badbaadaan ku noolnahay. waxaan codsanayaa wixii muslim ah oo wax iga qaban kara inay iga caawiyaan wixii mataqaana dhaqaatiir gaarsiin kara iyo wixii baabuur ii gadi kara baahideydu ma yara. ilmo waa ii joogaan oo aan hadda u shaqeeyaa jirin. ilaa xaqiis baan wax ka dhawrayna ma ahan dad in aadan aan ku nagu xiran oo nagu xiriirsan aan ku xiriirno noo shaqeeya ama aan qarash nasiya ma jiraan. marka waxaan codsanayaa wixii muslimiin ah iyo hay'adaha wax soo gaarsiin kara inay soo gaarsiiyaan sidaas baan codsanayaa. wixii hadda corona virus baan wadanka inta qabsaday baanaan hadda wax dhaqdhaqaaqa iyo waxa tan soo galaa midna asaas aysan jirin. marka sidaas baan codsanayaa. xaaladda guud hadda ku noolnahay risqana horta dadka Ilaahay baa qoray qof walba markuu dhashay oo markuu abuuray ayuu Ilaahay u qoray. hadba wixii aan helno Ilaahay na siiyo yaan cunaa. way shaqo toos iyo qarash toos oo meel laga soo gala ma jiraan. wixii Ilaahay caafimaadinaya waa sahlan yihiin. waxaan qabaa rajo fiican baan qabaa haddii aan helo dhaqaatiir fiican inaan caafimaadkaygu taam noqdaan rajaynaya. qof kasta wax ii awooda iyo muhiimadda igu weyn waxa weeye qarash aan dhaqaatiir ku tago oo u baahanahay. haddii aan hadda dhaqaatiir gaari aan ku socdana waan u baahana. ilaa baabuur sideeda weligeyba haddaan ma helin baabuur intaan hadda fadhiyayna wax baabuur aan ku socdo oo meel ku gaaro ma aan helin. afasoo muslimna sidoo iga caawin karo cudurkaasi aan ma dhaqaatiir aan u haleelo yaan uga baahanahay inuu ii caawiyo. lamarkaygu furo 8 9 11 58 saas weeye. lamarkaygu waxa weeye furo 8 9 11 58 lamarkaygu waa furo 8 9 11 58 waan u dirayaa muslimiinta gargaara oo Ilaahay baa wax gargaaree wixii baahan baahidooda Ilaahay baa tiri kare inaan qarash aan ku aado dhaqaatiir ku aado dhikar waa qabaa lugiina waa ka socon waayay oo wax shaqo oo aan u istaaga ma jirto. marka wixii muslimiin ah ama wax caawiya inaan qarash aan ku aado dhaqaatiir ka helo oo ay ugu caawiyaan codsanaya. lugahaygu waa jilbaha iyo xibnaha dhabarka iyo iska galaan lugu iyo xibnaha hoose oo ama cunada hoose ah. marka wax dhaqaatiir oo wax ka qaban kara ama wax ka qabta ma helin kamana wadanka kama helin. dalka dibadiisa ma aha dalka gudihiisa rajo aan isleeyahay waxba looga qaban kara ma jiraan. waa jilbaanad loogama qabto dalka gudihiisa wax badan loogama qabto. in la soo caawiyo marka wixii muslimiina la caawiyaan u baahana. tani waa imtixaan rabbaaniya oo lagu fiirinayo aadanaha. Abba Cabdinuur Geelle waxa uu dalbanayaa cid kasta oo muslim muuqaalkan aragto in ay soo caawido. Haashim Cumar Xasan, telefishinka Fayf Soomaali TV, magaalada Cadaado.